jaamacaduhu ma aha meel dadka lagu dhaamiyo ee waa meel caqliga lagu furo waa kala laba inaad u timaado inaad wax soo qaybtid iyo in madaxa lagu furo lagu siiyo mafaatiix ilcilm jaamacaddu waxay bixisaa furayaasha laakiin guriga haddii furihiisa lagu siiyo aad geli weyda ka war hadaa laga raba inaad research garayso gurigan iyo waxa ku jira baadi doontid laakiin jaamacaddu waxay ku ogashay inay ku siiso furihii aad iskaga furi lahayd qaabkii aad guriga kan u geli lahayd macluumaadkiisi iyo maabinkiisii bay ku siinaysaa dabeetana adaa lagaa rabaa inaad baadi goobtid waxa ku jiro aad eegtid waxay yidhaahdaan carabtu callimhu kayfa yastaad bay dhahaan faqiirka bay yidhaahdaan war ha quudinine sida loo dabto bar bay yidhaahdaan yani qofka hadduu maalin walba markuu ku yimaado aad waxoogaa u dhiibto iyo haddaad barto sida loo shaqaysto keeba midho badan haddaad qofka barto maalinta ku yimaado xabad kalluuna siisid iyo haddaad barto baddaa sida kalluunka loogala baxo adna wakhti yar bay kaa qaadanaysaa inaad barto inuu badda geli karo isna wuu kaa maarmayaayo bad dhan oo ilaahay abuuray buu helayaa inuu ka xoogsan karo sida ogeed tacliimtu waa nooca jaamacaddu waa nooca jaamacadda waxaa la rabaa in furo lagu siiyo laakiin adigu inaad noqoto qofkii soo jeeday ee librariga gelayay ee wax baadhayay ee wax baxsinayay qodobka labaad waxa weeyaan tuuganimadu ma bannaana ardaynimada honesty inaad mukhlis noqotaa baa la rabaa waxaan uga dan leeyahay imtixaan la soo xada iyo buug wax ku qoranta la soo naqliyo macallinka loo dhiibay iyo dee dunida kale si ay isu baadhaabaabay leedahay oo jaamacadka waaweyn ee dunida ku yaalla dee waxay leeyihiin brograamo ay iibsadaan oo sida google-ko kale ah algoritmkiisa leh oo waxaad qortay marka la geliyo soo saaraya inba meeshaad ka keentay inba buuggaad ka soo goysay hadduu waxaagu ka taambays ahaa oo aad buugganna in ka soo jartay kanna in ka soo jarto intaad isku rakibatay aad ka dhigtay adigu inaad qortay wuxuu soo saarayaa brograamkani inba xaggaad adigu ka keentay marka waad ceeboobaysa buugga ama inaad si cad u sheegtay inaad wax ka soo qaadatay ama dee idea unbaad qaadatay waa inaad adigu waxaagii samaysay laakiin inaad isku dhadhajiso innaga waxaa laga yaabaa inaynan brograamadaana haysan dabeetana arday tuugii inay soo baxdo unoo waxadda waxba ha xadin naftaadana waad khiyaamaysay waddankana waad khiyaamaysay jaamacaddana waad khiyaamaysay bulshadana waad khiyaamaysay khaayinkuna ma guulaysto waxba tari mayso inaad la yidhaahdo imtixaanaadkii b balas iyo e balas buu ku baxay waxba tari mayso waxaad garanaysaa wax tara waxa aad garanayso ayaa waxaa wax tara saa daraaddeed ammaana alcilmiya waa inaad barataan oo itqaanka waxaa ka mida inaad wax sugto waxaa ka mida inaad ammaana cilmiya yeelatid inaad noqotid qof raba mukhlis ah oo waxaanuu rabo inuu barto daacad ka ah daacadnimadaas waxay keensanaysaa inaadad tuuganimada sii baran haddaad ardaynimada tuug ku tahay hadhowna de waad xadaysaa un meesha kale aad tagto faa'iido yeelan maysid waxaa ku habboontahay markaa si aad cilmiga u itqaanin kartaan inaad ammaanada barataan inaad honest noqotid inaad cheating samaynin waxadin waxaan intaa idin raacinaya marka labadaa qodob haddaa isla heshaan inaad hubiyadaada ilaashan kartid oo dee cilma ayana lagu ilaaliyaa diintaada afkaaga dhaqankaaga inaad ilaashatid waxaad ku ilaashanaysaa waa aqoon inaad baratid dadku inta badan waxay u haystaan malcaamadii wixii uu soo maqmaqlay iyo xaafadaha wixii aad ka soo gaadhay ama reeraha wixii aad ka soo gaadhay inay tahay diintii rasmiga ahayd oo aad garanaysid wartaasi diin maaha diintu waa wixii kitaab iyo sunna sheegaya inaad si fiican u fahamto waxay dhahaan kitaabka qur-aani waa buugga doonida loogu akhris badan yahay looguna aqoon daran yahay bay yidhaahdaan labadaasi may wada qabataa
imisa muslima faatixada akhriya dumalaynaysa sooma badnaa imisa faatixada macnaheeda yaqaana waa mid subxaan allah ummadana faatixa akhriyayso habeen iyo maalinba wado aan dara garanaynay waa wax cajab ah yani waa dhibta ay raaxaysataa faatixa macnaheeda inuu bartaa maxay qaadan lahay toddoba aayadood macnaheeda inaad barataa waqti intee layba kaa qaadan lahay laakiin dee dhug baynan u lahayn waynan eeginba sidaa ogeed waxaan rabaa aydhanta tigu soomaali baan ahay iyo reerkayga muslim ha kuma sugmo haddii kale waa waxaan yararka hadda ku dhacee markuu gaalo facebook iyo meelaha kane waxoogaa dooddoodaya oo khurafaad akhrinaya u arko markiiba uu murad isla soo taago war maxaa inamadii ku dhacay mid wax sheegsheegay unbay soo maqleen run bay moodeen xataa bini aadamku war shakiga lama gudbiyo markaad yaqiin gaadhaa baa la doodaa haddii in yar laga soo shakisiiyo isna shakigii wuu soo doodaya shaki cilmi maaha waxaan leenahay markaa aydhanta tigiina wayna sugtaan war diintiina wayna barataan baranaysay haddana waxaan rumaysnay ma aqaano waa ceeb waan aqbalayaa odayga ama islaanta baadiye jooga haddii aqoontu ku yaraato waayo awalba iyaga wax looma dhigin waxoogaagoodu awalba cilmi dhagood buu ahaa cilmi dhagoodka in loo saxana waan ogolay laakiin adigu inaad tidhaahdo diintayda cilmi dhagood baan ku hayaa waa ceeb jaamacadna waan joogaa waxaan rumaysanahay ee aan adduunkan dhan ka rumaysanahayna waa cilmi dhagood waa ceeb runtii idan waa inaynu aydhanta tigeenna sugnaa kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaadna waa maxay atasalluf bilcilm waa inaynan ka been sheegin waxbarashadee waa inaynu ka run sheegnaa mar saddexaad waxaan tilmaamayaa culumta marka la qaybinayo si kale loo qaybiyana waa jirtaa siyaabaha loo qaybiyo kale waxaa ka mid ah culumta qayb waxay yidhaahdaan waxay ka warantaa qofka bini aadamka ficilkiisa oo waa culumtan dhaqaale ku saabsan siyaasad ku saabsan waa afcaasha bini aadamku uu samaynaya ka warantaa qaybna waxay ka warantaa bay yidhaahdaan maadada materialka oo waxaan physics iyo chemistry iyo waxaan materialka engineerka iyo waxa kan qaybna waxay yidhahdaan waa culuumi shariica innaga dhib baa ina haysata wakhtigan dambe oo ceebihii isticmaalku inagaga tegay waxaa ka mid ah qayb shareecada baratay oo laakiin qarnigii 13aad ee miilaadiga nool hadduu joogaa indhaha dadka dhintay buu wax ku akhriyaa isaga kuwiisa wax kuma arko aw hebelkii noolaa goorma wixii uu qoray buu dul taagan yahay taasi waxay dhaxal siisaa nolosha uu la nooliyay inaanu waxba ka ogaanin kaasi waa qayb dadweyneheenna ka mid ah aqoon-yahankeenna ka mid ah xagga kale cagsigana waxaa jooga mid injineer ah ama tabiiba ama siyaasiya ama dhaqaalayahana waan weysadu waxay ku burtaa aqoonin iyana waa ceeb labaad oo ka sii darantii hore adduunna waxbuu ka og yahay salaaddu waxay ku burtana ma yaqaano ardada jaamacaadka ee cusub ee wakhtigan nool ee fursadda helay hadday tahay cilmigu siduu u faafay hadday tahay nadki iyo waxa la haystaa waxaan leeyahay waxaan rabnaa ciddii kulmin lahayd waa ardayga jaamiciga ah waa qofkaasaa helaya fursaddii waxbarasho ku jira wakhti uu u xadiday inuu waxbarto jooga cimrigiisa markan waxbarasho ugu talagalay fursaddiina ay hor taallo si awgeed waxaan rabaa haddaad dhaqaale baranayso inaad kaloo ogaato islaamku muxuu dhaqaalaha ka qabaa maxaa xaaraana maxaa xalaala maxaa la ogoliyay labadaba waad baran karaysa waxaan rabaa haddaad siyaasad baranayso inaad ogaato aadanaha wixii uu taariikh soo maray iyo tajaaribtii bini aadamka inaad barato
iyo maamulada iyo say u jireen iyo say u dhisnaayeen say wixii kaaga habboonaaye fanniga lagu dhigay inaad barato isla markaana inaad ogaato rabbi muxuu kaaga warramay kaaga sheegay ilaan qur-aanku wuxuu ka warramayaa boqorro gaaleed boqorro muslima nebiyo dad ay la dagaalameen gaalo guulaysatay muslim guule wuxuu dhan baa qur-aanka ilaahay kaga warramaya dhanka kalena inaad baxdidid maxaa qur-aanka ku yaala waxaan rabaa inaad tabiib noqotid dhanka kalena inaad baratid maxaa shareecadu ogoshay maxaan ogolayn waxaan rabaa inaad saydali noqotid pharmacology inaad baratid laakiin inaad garatid dawada maxaa xalaala maxaa si xaaraana dadka dawo khamri ku jirta ma la siiya mise lama siiyo see wax loo samaynaya badiil meel helaya mise la heli maayo maxaa diintaadu ogoshay maxaanay ogolayn yani waxaa laga yaabaa maanta dawooyinka inoo yimaada culture-iskay xataa ku salaysan yihiin dawooyin baa jira dhadhanka loogu sameeyey waxaan xalaal ahayn iyadoo la eegaya culture-kii dadka iyo si soo carruurta marka dawadooda had iyo goor wax macmacaan bay leedahay soomaa say u liqaan even the cultures baa lagu eegaa culture-kan waa maxay dhadhamada u fiicana u yaqaana saaweed ummadii hore ee taariikhda islaamiga markaad dib ugu noqoto waxaad arkaysaa caalim faqiih ah oo qaadiya xagga kana culuum alijtimaaciya wa siyaasiya hogaaminaya soo ibnu khalduun nin la yidhahdo ma maqashaan ibnu khalduun waxay yidhahdaan waa mu'asiskii koowaad ee culuum alijtimaaciya fi lcaalam awal kitaab waa muqadamadiisa yidhahdaan kitaab taariikhu qorayey kitaabka taariikhda uu qorayuu rabay inuu muqadamo u sameeyo kitaabkiisa muqadamada waxay dhahay xawaali 4 sannadood bay ka qaadatay inuu qoro kitaabka muqadamada uu qoray baa xataa maanta muslimku qiimaynta kitaabka ay siiyaan wuxuu kaga yimi galbeedka markay mustashriqiinta iyo kuwii galbeed akhriyeen ee buunbuuniyeen ayaa dib loo eego la yidhi waryaa show muqadamada waxbaa ku jiray sawgeed waxaan rabaa qaadi buu ahaa qaadigii sharciga ahaa ee maxkamadda islaamiga joogay buu ahaa ninka waxaan qorayana uu ahaa waxaan leenahay ibnu nafiis طبيب بوها وأول من اكتشف دورة دموية صغرى ليقولي غير وانك الدنيا ده بلا طلياني هو بين كي شيكتان أول رجل كتبتي سيبا الله يا بحثيسي شيغة الدورة الدموية الصغرى إسلام كان فقيه شافعي منهاج كاخرية بوها محي مساجد كاخرية وحلاني مركز